Assalaamu calaykum. Halkaas marka ay wax marayaan waxaa yimid doorkii Rawaan waxaana bilaabantay sheekadeedii basaasnimada. Caysara waxa uu jeclaaday Rawaantaas oo hamigeeda ugu badan ka dhigtay inay wiilkeeda xanaanayso. Caysara ayaa u soo bandhigay inay madadaalo ahaan wax isla wadaagaan dabeecado ahaan. Waxa uu damacsanaa inuu sii badsado xoolaha uu ka helo sirdoonka Mossad. waxa uuna gabadha ka dalbaday inay shaqaale ka noqoto wasaaradda arrimaha dibadda si kasta oo ay shaqadaas ku heli kartaba waa inay raadisaa. Shaqadii way heshay Rawaan jirkeeda ay bixisay ilaa ay u suurta gashay inay saameyn ku yeelato lacagna way heshay oo lacag ay ka dalbi jirtay marka ay jirkeeda u hibayso. waxa ay heshay dukumentiyo iyo qoraalo badan oo ay ka heshay kaydka sirta ah ee wasaaradda. guul weyn ayay gaadhay Rawaan. markii koowaad waxa ay xoogga saartay inay loolanka ku gasho hawlo jinsi. arrimahaas jinsi ayay jiritaankeedii u hibaysay waxayna ilowday baahideedii ummadnimo. shay kasta way ilowday. shaqada ayay dhex quustay oo sii wadatay, balse Caysara oo ka dhintay masayrkii iyo raganimadii wuxuu Rawaan ku kalifay inay ugaarsi ama beegsi joogto ah u geysato xidiglaha ka shaqeeya madaarka Baghdad oo deganaa aqalka ka soo horjeeda. arrintu aad ayay u leedatay. Rawaan waxa ay caan ku ahayd oo adeegsan jirtay awoodeeda dhidignimo oo waxa ay isku dayday inay ku soo jiidato xidiglihii dhalinyarada ahaa ilaa ugu dambeyn isdhiibay. wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu iska dhacay si bilaa fikir ah. waxayna agtiisa ka heshay xogo badan oo sir ah oo ku saabsan garoonka diyaaradaha xamuulka ee sida hubka ama sahayda ciidamada. sidoo kale waxa uu sheegay arrimo amni oo xasaasi ah. Caysara iyo Rawaan guulba guul kale ayay u dhiibaysay oo sidaas ayay u wadeen guulaha ay ka soo hoynayeen caalamkan khiyaanada iyo danaysnimada. waqtigaas gabadhii waxa ay daciifisay oo yaraysay khibradiisii iyo hantidiisii oo sababta keentay waxa ay ahayd sabab amni iyo xogaha qaaliga ah ee ku heli jiray fadliga jirka xaaskiisa. gaar ahaana waxa uu uga warrami jiray inay xaaskiisu ay shaqo heli doonto. waxa ay lahayd awood heer sare ah iyo saameyn ay shaqaalaha ku dhiirigeliso. waxayna u sheegi jireen inay arrintaas shaqaalaysiinta ah awoodaan oo shaqo siin karaan. ugu dambeyn Rawaan mushahar joogto ah ayaa loo qoray oo waxaa lagu daray ciidanka ugu horreeyay ee difaaca Israa'iil ah iyada oo lagu kalsoon yahay inay caawiso ama kaabe u noqoto kormeeraha. sabab ammaan darteed Caysara waxa uu guri cusub oo hal dabaq ah ka iibsaday xaafadda Al-Kaadamiya. gurigiisuna waxa uu lahaa oo ku dhex taalay beer aad u weyn oo leh geedo damla ah oo waaweyn. aqalku gudaha waxa uu ku lahaa weynayso waa teleskoobe. weynaysadaas waxa ay u ogolaan jirtay inuu arko ama uu si fiican ula socdo waxyaabaha guriga dibadiisa ka socda ama ka dhacaya. waxyaabahaas waxa uu aqalka dhexdiisa ka eegaya isagoo aan bixin oo gudaha iskaga jira. gaar ahaana waxa uu eegi jiray marka uu rabo inuu dibadda u baxo ama marka ay soo booqanayaan wafdi muhiim ah. haddaba aqalkii waxa uu isku bedelay goob ama qol lagu qabto oo lagu qorsheeyo shaqooyin khatar ah oo xasaasi ah. una saameyn jiray oo kasban jiray cidda uu rabo inuu ciidamada ku daro. 3 sano ee Rawaan ku jirtay ama ka midka ahayd basaasnimada waxay kaligeed awooday inay hal sano ku qalabayso 13 ciidan oo meelo muhiim ah ku sugnaa. 4 ka mid ah waxay ahaayeen saraakiil mushahar kala duwan ka qaata ciidamada Ciraaq. sarkaal kale waxa uu ka shaqayn jiray oo sugi jiray amniga garoonka diyaaradaha. 60 nin ee kale ee soo harayna waxa ay ka kala shaqayn jireen oo mansab maamul ah ka hayeen wasaaradaha kala duwan. dhammaantood waxa ay gacanta u galeen oo soo qabatay Rawaan oo adeegsanaysa luuqadda dhaqdhaqaaqa jirka iyo wanaageeda. waxayna awooday inay sirtii ay ciidamada ka hayeen Ciraaq ay marka hore ku wareejiyaan Israa'iil. markii la ogaaday xaaladda Caysara iyo gacanyarayaashiisii waxaa la isku dayay in loo dhaco oo la jabsado shabakadii sirdoonka Mossad ee Ciraaq yaalay. waxayna ahayd natiijo qalad weyn ka yimid nidaamka xiriirka shabakadaha dhexdeeda. kaasi waxa uu ahaa qalad ay Ciraaqiyiintu ka faa'iideysteen waxaana si fudud ugu suurtageliyay inay hal mar baaraan 9 shabakadood. waxyaabaha xog la'aanta badan ee sirdoonka Israa'iil sababay waxaa ka mid ahaa inay joojiyeen diridda xogaha kala duwan ee nolosha dadka ku nool Ciraaq. Rawaan waxa isku dayday inay xog ka hesho dhakhtarkii ciidamada daweynayay iyadoo iska dhigaysa inay darajo ciidan sidato oo kabtan tahay. waxayna adeegsatay tabo ama qorshe ay ku dhexdhexaadin karto qaar ka mid ah shaqaalaha si ay ninkeeda wax uga ogaato.
dhakhtarkii shaqadiisii ayuu gabay wuxuuna jacayl iyo kalgacal u qaaday Rawaan muddo badan iyada ayuu u murugaysnaa oo bukaan caashaq ayuu u noqday Rawaanna danayn badan ma ay siin balse wax yar ayay siisay ilaa ugu dambeyn ninkii gabi ahaanba caqligiisii uu waayay oo waali camal u noqday markaas ayay bilowday inay jacaylka wax uga bedesho wax kastana bedelkiisa oo wax u dhigma ah ay siin jirtay iyo lacag markii ay timid ilbiriqsiyo wax kasta waa la ogaaday waa la khashifay kabtankii dhakhtarka ah ee Xuseen Cali Cabdullaahi muu rumaysan inuu ku dul fadhiyo oo laabta ugu jiifo basaasad xirfad leh laabteeda ayuu ka kacay farxadda uu faraxsanaa ay wax kasta u dhex raacisay ugu dambeynna uu istaagay isagoo oo fajaxsan oo dharkiisii ayuu xidhay wuxuuna u ballan qaaday masiir madow waxa ay ugu hanjabtay inay faafin doonto qoraaladii ama kaydkii la xidhiidhay howlaha jinsiga ee ay ka haysay wuu iska waabiyay oo hadalkii ayuu ku celiyay waayo waa nin oo ceeb kuma aha waxa ay sheegaysaa oo waxay sii xoojinaysaa raginimadiisa marka labaad waxa ay ugu hanjabtay inay dhinaca siyaasadda iyo militariga ka xidhi doonto oo mustaqbalkiisa oo iyada gacanteeda ku jiro isna candhuuf ayuu ku tufay isagoo inuu dhiibi doono isna dalacsiin heli doono maadaama uu basaasad Israa'iiliyad ah aw soo dhiibay waxaana ugu hanjabay inuu silsiladeyn doono oo inta uu isku jabiyo maamulka meesha ka jira oo u dhiibi doono balse si kadis ah ayuu meel gaaban uga soo baxay Casayra oo qorigiisa wata wuxuu dareemay inuu dambiile yahay sidii nin military ah waxa waajib ku ahayd inuu ilaaliyo ilaa inta ay aqalka ka soo baxayso balse waxa uu aaminsanaa inay labadooda oo kaliya ahaayeen Caysara ma siinin fursad uu kula sii dhaqmo oo kula macaamilo si qumaati ah ayay ugu dhufatay rasaas madaxiisa waxa daatay oo gidaarka qolka ku kala firdhisamay lafihii qalfoofka ee dhamacdii ka baxaysay rasaasta ayaa wax yeelaysay Rawaan ayaa si aad ah u qayliday oo afka gacanta gelisay balse qayladii ayay qarisay markii uu soo galay isaga oo xanaaqsan waxa ay aragtay laba indhood oo uu diray fariin sida dhamacda dabka ah naxdin ay gariirtay oo way cabsatay Caysara ayaa bilaabay inuu caayo maadaama ayna sidii hore oo kala saameyn ugu lahayn oo ay weynaatay oo ay cajuusad noqotay balse iyada waxa ay degdeg u guda gashay sidii ay ugu soo bandhigi lahayd kalsoonidii ay ku qabtay quruxdeeda labadii qof habeenkii oo dhan qabrigiisii ayay beer ka dambeysay ka qodayeen dabadeedna camuudda iyo ciidda ay dul dhigeen haragiisa dusheeda Rawaan ayaa khajilaad darteed yaraatay si ay kala noqotayba waxa ay ku seexan jirtay dilaa ama dhagar qaba weyn laabtiisa werwer badan iyo niyad jab xoog ah ayaa Rawaan la soo darsay oo aqligeedii mashquul buu galay balse maskii sumaysnaa ismu dhiibin umuna indha eekayn mid isdhiibaya sharaf ayuu ka sugayay Israa'iil haddana waxa uu sameynayay ama dhisayay taariikhdiisa iyo sooyaalkiisa basaaskii maskaxda badnaa hawshiisii ayuu sii watay dariiqii uu haystay dariiqii waxa uu ku mari jiray kalsooni waxaana buux dhaafiyay isla weyni 9 sanadood muu daalin ama muu cabsoonin taageerayaashiisii ama gacan-yaraashiisii way ka baxeen oo hijroodeen ururadii iyo jamaacadihii kala duwanaa ee Ciraaq ka dhisnaa waxa ay soo ururin jireen waxyaabaha Israa'iiliyiintu ay la yaabaan oo xog ah waxayna ka soo ururin jireen Ciraaqiyiinta dhexdeeda fariintii ergada ahayd ee raadiyowga laga sii daayay arintu waa ay ka duwaneyd waxa la dalbaday waxa uu ahaa in la qalabeeyo baylod military ah oo Ciraaqi ah qiimaha ay doontaba xaq ku qaadatay ninkii waxa uu go'aansaday inuu diyaaradiisa dagaalada ee nooceedu ahaa 22 oo uu diro ilaa Israa'iil Caysara waxa uu bilaabay safar iyo socdaal uu ku baadigoobayo ama raadinayo baylod khaa'in ah inta uu ku dhex jiray wax raadinayay ciidamada xubnaha ka ahaa shabakadiisa Caysara waxa uu meeshii soo galiyay kormeere baylod Shaakir Maxamed Yuusuf ninkaas oo ka dhashay goobta la yiraahdo Xasan al-Jadiid waxa uu na dhashay sanadii 1936 waxaana ugu horeeyay ee hore ugu biiray koorsooyin tababara ah oo lagu qabtay Moscow iyo London si loo kordhiyo awoodiisa diyaarad wadideed gaar ahaan diyaaradda dagaalka ee nooceedu yahay 22 oo la rabo in laga argagax geliyo oo dagaal lagu qaado Israa'iil Caysara iyo xaaskiisa ayaa ku kulmay mid kamid ah munaasabadaha la isugu yimaado Rawaan ayaa isku dayday inay u adeegsato hubkeeda ama awoodeeda dhitignimo ee xad dhaafka ah ee
si uu u soo jalleeco balse wuu iska indha tiray oo maba eeginba way cadhootay waxayna dareentay isku buuq waxayna ka cabatay iyada oo dhadig ah in la soo jalleeci waayey maalmo kadib ay nafteeda ku noqotay oo go'aan isweydiisay dabadeedna waxa ay Caysara ogeysiisay go'aan ay soo gaadhay oo ahaa inay iska ruqsaysay ama iska casisay shaqadii ay haysay galab ayaa gole la isugu yimid waxa sir ahaan la isugu sheegay in duuliyihii dhalinyarada ahaa uu yimid xaflad balse uu iska indha tiray oo inkiray inuu eego xaaskiisa oo joogtay arrintii ninkii ergada ahaa ee Shaakir ayaa galay waxauna ogaaday inuu xiise gaar ah u hayo inuu gabadha barto dabadeed waxa uu bilaabay inuu isku xidho oo nambarada uu kala qaado labadooda Rawaan waxa ay bilowday inay dib u soo ceshato firfircoonideedii iyo indhasarcaadkeedii waxayna ku dhawaatay inay saamayso qaar ka mid ah duulayaashii ilaa uu sakadiis ah waa Caysara ugu safray Mareykanka gaar ahaan gobolka Texas si uu uga qayb galo seminar halka lagu qabanayay oo ku saabsanaa qaababka wax loo tashkiiliyo xarumihii dhexe ee halkaas ku yaalay amarkiisa iyo waxa uu soo jeediyo ayay qaateen inta uu jidka ku sii jiray qorshe kale ayay siisay waxa ay la timiday waji degdeg ah oo aan hore loogu aqoon waxa ay bilowday inay u shaqeyso sidii kalkaalise ka shaqeysa dhakhtar Mareykan ah oo Vienna ku yaala gabadhaas waxa ay ahayd Kowsar waxa ayna kormeera ama ilaaliye ka ahayd garoonka diyaaradeed ee dhinaca hawada ahaa ee Texas ku yaalay shabakadaheeda waxa ay ka agdhaweysay Shaakir Yuusuf agtiisa isna si mooganaan ah ayuu gudaha ugu galay dabinkeedii isagoo aan wax awood ah iyo xeelad toona midna lahayn isaguna waxa uu rabay gabar Mareykan ah oo jecel oo waqti kooban la qaato halka iyadu ay doonaysay inay hesho nin ama xaas nolosheeda qayb ka maqan dhameystira markaas wuu diiday doonisteeda maadaama uu hore u lahaa xaas ama gabadh uu qabay oo uu aad u jeclaa balse kamay quusan markasta way isku day jirtay ilaa ay ku fashilantay markii dambe waxa uu si fiican ugu cadeeyay inuu sirdoonka Mossad iyo CIA toona midna aqoon ciidamada Carabta waa ka xaraan inay guursadaan ama guurka ablaha ajnabiga balse Israa'iiliyiinta iyo Mareykanka waxa ay aad u jeclaayeen inay isaga saameeyaan oo qalabeeyaan ama hubeeyaan si uu isaguna ugu sheego siraha iyo xogaha la xiriira diyaaradaha Soofiyeedka markii uu Baghdad ku soo laabtay isagoo aan u rumayn hididiiladii iyo wixii ay ka doonayeen waxa isla markiiba ka tabaduushay Kowsar oo degtay hudheel Baghdad ku yaala oo dawladeed dabadeedna ninkii ay la xiriirtay isaga daraadii ay halkaas u tagtay way la yaabtay isaguna waxa uu guri diyaarsan oo goglan uga kireeyay dhinaca bari ee magaalada Kanada oo ku ag taala webiga Tigris isaguna si hoose ayuu ugu iman jiray oo markaas si qarsoodiyaha ay uga soo laaban jiray isagoo isku dayaya inuu ku qanciyo inay ku soo laabato ilayn waxaasle oo caruurna uu korsadaaye dhig umay dhigin maani dhageysan iyaduna markii uu dhacay ururkii nabadda caalamka ee xoogga saari jiray faafinta nabadda dunida dhexdeeda ninkii gabadhii ayuu ku qaliyay waxaana ugu hanjabay inay si degdeg ah Ciraaq uga baxdo balse hadii ay degdeg uga bixi weydo inuu arinteeda madaxda sare gaarsiin doono intaas kadib waxa ay rabtay inay u bareedo dagaal waxa ay aragtay fursad inay laga maarmaan tahay inay buufiso isaga wax yar ka hor muddada ay filayso inuu fadeexadeeyo oo arinta sheego arintii ayay u qashiftay oo u sheegtay Ameerikaankii iyo Israa'iiliyiintii duuliyaashii warbixinada ciidamada u gudbin jiray ee diyaaradaha dibadda u diri jiray gaar ahaan diyaaradda nooceedu yahay 12 ayaa arintii diiday amro ayaa ka soo fulay ama ka yimid Caysara amarkaasi waxa uu ahaa in laga takhaluso ama la dilo duuliyihii Captain Shaakir Yuusuf qaabkiisana waxa uu ahaa hanaanka lagu caawin karo CIA-da Mareykanka iyo sirdoonka Mossad sirdoonka Mossad ayaa faafiyay arin degdeg ah oo sheegaysa in Caysara uu la xiriiray gabadhii Kowsar oo wanaaga Carabta jeclayd dhinaca khadka ayay isku waafaqeen oo arin ay isku og yihiin ay ku wada gaareen intii Captain Shaakir booqanayay guriga goglan ee Kowsar markii ugu dambeysay waxa uu u qasdiyay inuu gaarigiisa kaga dego shaarica meel ammaan ah si ayna waxba soo gaarin muran adag ayaa dhex maray markii murankii dheeraaday ugu dambeyn waxa ay ugu hanjabtay inay faafin doonto filimo iyo muuqaalo galmaha oo Mareykanka hore loogaga qaaday balse isagu muhiimad ma uuna siin ugu dambeyn waxa uu soo bandhigay malaayiin lacag ah
diyaaradii nooceeda 21 ee u socotay Israa'iil wajiga ayuu dhirbaaxo xoog badan kaga dhuftay sanka ayaa dhiig ka yimid ka hor intii aanu qolka ka bixin waxa uu sakadiisa u maqlay qoriga ama xabadii Caysara oo cod sameynaysa Shaakir ayaa xaalad kadis ah galay waxa uu rabay inuu iyaga hortooda aw rasaastiisa isticmaalo nasiib darro may dhicin Kowsar ayaa boorsadeedii xirxiratay ayaa raacday diyaaradda London u socotay halka Caysara uu ku mashquulsanaa inuu tirtiro qofka dhintay raadkii iyo wax kasta oo lagu garan karo sida faraha ama qalabka faraha la saaro qalfoofkii meydka inta uu qaaday ayuu sariir hoos geliyay isagoo dul dhigay waxyaabo kale oo qariya dabadeed wuxuu meydkii ku furay muraawaxad intaas kadib si kadis ah ayuu gurigii uga baxay inuu meesha yaalo qalfoofkii meydku waxa la ogaaday 6 July sanadii 1965 oo ahayd toddobaad kadib markii uu dilka foosha xun dhacay Caysara maalmahaas waxa ku sugnaa xaaladii ugu xumayd oo noloshiisa soo marta wargeys Ciraaq ka soo baxa ayaa faafiyay war sheegaya dilka qarsoon ee ay Kowsar felisay mid ka mid ah hoteelada London oo waliba shirqool qarsoon ku dishay qoraalkaas waxa la baahiyay 2 maalmood kadib markii ay tagtay Baghdad mas'uul ayaa cadeeyay in la helay qalfoofkii meydka oo go'ay waxa kale oo ku yaalay 30 dhaawac oo ah kuwa muujinaya in qofka midi ama warar lagu toogtay Caysara adduunyadii ayaa ku soo yaraatay oo dunidii ballaanayd waxa uu dareemay inay ku soo koobnaatay oo cidhiidhi badan ayuu dareemay wuxuuna khiyaalkiisa ku sawirtay in mar uun sirdoonka Mossad ay dili doonaan balse ma ogeyn in qaabka sirdoonku shaqaalahooda ku dilaan uu ahaa qaab ah inay dilaan kadib marka ay danahooda ka fushadaan arrintaas ma uu ogeyn ilaa mar dambe uu ka xumaaday wirelesskii mooyaane waxa ay isku qariyeen guri ka mid ah guryaha oo kamay baxay guriga isaga iyo Rawaan xafladihii sanadka bilowgiisa kadib bilowgii bishii Janaayo sanadkii 1966 waxa arrintii khashifay shabakad ka mid ah shabakadaha wax daabaca baadhid ayaa la bilaabay waxaana la isku dayay in raadkiisa laga raadiyo meel kasta oo dalka Ciraaq ka mid ah arrintii waa la iska indhatiray ka hor intii ay nafraha la gelin baadhida hay'adaha mukhaabaraadku xilligii salaad subax soo dhawaatay ee waabiriga ahayd ayay gurigii xoogagii amniga ah ay soo weerareen waa gurigii Caysara iyo Rawaan waxa ay samaysay kaarta ama qaab fiican oo ay isku qariso waxa iska dhigtay shay ama walax meel taalo oo kale meel ay seexatay sidii wax aan dhaqaaq lahayn oo kale dabadeed si kadis ah ayay u qayliday dadkii ayaa Rawaan weydiiyay halka uu maray Caysara si degan ayay u tiri ma habsaamo iyaduna faahaan waxa ay qiratay inay tahay basaasad Israa'iiliyad ah sidoo kale waxa ay awoodo inay ciidamo badan oo Yuhuudda Ciraaqiyiinta ah iyo kuwa kale oo daalan ay kaga faa'iideysato oo ku gaado sasabasho iyo galmo waxa kale oo ay tustay sargaalkii ay xabaaleen ee ay ku aastay beerta gadaasheeda dabadeed waxa ay geysay goob qarsoon inta internetka ama wirelesska shiday ayay lambaro afgarasho ah qortay waxa ay soo saartay kamarado qarsoon filimo warbixino iyo cadeymo ayna dib u tusin Mossad Rawaan waxa ay qiratay waxyaabo badan waxa ay sheegtay inay muddo 10 sano ah ka shaqeynaysay masaalixda ama danaha Israa'iil oo kaalin firfircoon ay kaga jirtay